Sara goortay sidaas soo gashay boqolkii waxay halkaas ku aragtay hooyadii weliba ninkii ayada qabay oo halkaas wax xumaana ku samaynaya wayna aamini weyse waxay arkayso iyadoo xilligan caraysanayeen meeshii ka soo carartay daranjagtii ay ka soo degaysa ayayna xilligaas ku sirbaxatay ayadoo ugu dambayntiina dhul ku dhacday nasiib darase markii isbitaalka loola cararaba gabadhii waxaa la sheegay inay halkaas ay ku geeriyootay soo dhawaada saaxiibayaal waa walaalkiina barqada maanta inay wada qiso aad u xanuun badan weliba aan rajeynaya cashiro badan ay kaga bixi doonaan inaga hub inaad muuqaalkan like saartid channelka dad ku cusubtana subscribe ta naga ilmaamin war yaanan ku daalinaha sheekadana gudaha u galno qisadeennu waxay ka dhacday dalka Nigeria gaar ahaan magaalo yar oo ku taala ayaa waxaa ku nooleed haweeney lagu magacaabo Mama Rihanna. Mama Rihanna haddii wax yar aan kaga sheekeeyo horta ninkeedu sanado ka hor ayuu dhintay xoogaa carruur raba uga tegay carruurtaas oo ninkeedu uga tagan ayadana waa ay la hardantay ilaa ugu dambayntii ay weynaadeen qaan gaareen kuwana waxay iska aadeen caasimadda oo iska shaqo bilaabeen kuwana way iska guursadeen ilaa ugu dambayntii keligeed ayada guriga ay ku soo hartay inkastoo haddana xilligaasi maama ay xilligaasi Rihanna ay guriga ku dareemaysay murugo sayda murugadana wax kala maane waxay ahayd inay keligeed ay guriga ku saartay ilmeheediina hadda ay ka kala tageen subax walbana waxa ay samayn jirtay inay bannaanka hore iska soo fadhiisato iyadoo daawanaysa dadka waddooyinka iska maraya sidaasoo kale waxaa soo booqan jiray haweenka ay dariska yihiin iyagoo halkaasi ku sheekaysan jiray inkastoo haddana xilligaasi dad badan ay iyada soo booqanayeen la sheekaysanayeen haddana xilligaas waxay ku dareemaysay kalinimo maadaama ay carruurteedii ka fogyihiin kadibna go'aan waxay ku gaartay gabadheeda inay la xiriirto gabadheedana waxay ku nooshaa halkaas iyo magaalada Lagos gabadheedana waxaa lagu magacaabaa Sara haddii bal Sara wax yar aan kaga sheekeeyo horta Sara waa la aroosay oo nin ayaa waxa uu ku qabaa caasimadda nolol wacan ayayna isaga nooshahay aan dib ugu soo laabanno Mama Rihanna habeenayay moobilkeeda qabsatay kadibna waxay la xiriirtay gabadheeda xilligaasna wax kale kama aysan rabin waxay uga baahneed in meeshaan ay ka kaxayso kiina ay geyso goortaysa moobilkii gabadhii ay ka qabatay ayay tiri hooy macaan ii waran seeta xaaladada ka waran noloshana ma ku wacan tahay Mama Rihanna ayaana xilligaas ku tiri gabadheedii xaaladeedu waa ay wacan tahay laakiin dhibka jira waxay tahay gurigaan cidlo ayaan ku dareemayaa mana jiro qof badan aniga aan la sheekaysto waad ogtihiin inaad meeshii aad iga tagteen adiga ayaana ilmaha iigu dhowaay marka gurigaan cidlo ayaan ku dareemay ka waran gabadheedii haddii aan halkaasaan kuugu imaado si aan guriga cidlo aan ugu dareemin xilligaas ayayna gabadhii waxay tiri hooy macaan waa arrin wanaagsan weliba waan soo dhowaynayaa laakiin waxaan kaaga baahanahay hal shay oo keliya inaad ii samayso halkaasna wax kala maanee waxaan doonayaa ninkayga inaan la hadlo marka hore adheeye ee marka aniga ayaa ku soo wacaya kadibna maamadii xilligaas waa ay ka aqbashay Rihanna gabadhii si yar tahayd waxa ay bilowday inay ninkeeda sugto intuu guriga ka soo laabanayo wax badan ba kama soo qaadane habeenkii ayuu xilli dambe guriga ku soo laabtay waliba xilligaas isagoo aad u daalan dhacdhacayana oo ay ka muuqatay daalkii weliba shaqada uu maanta soo qabtay eedana xilligaas isma aysan dhibin ninkii si wacan ay u soo dhaweysay biyo qabow iyo weliba wax walba ay u soo diyaarisay waxayna tiri ninkayga ii waran say ku ahayd maalinkaagu isagana xilligaas waxa ay ku yidhi noloshu way wacan tahay ii waran wax dhib ayaa jira xilligaas iyana waxay ku tiri dhigaysa waxaan doonayaa inaan arrinkuu sheego waad ogtahay hooyaday meeshay ku noolshahay ee magaalada bannaankeeda keligeed ayayna cidlo halkaas ku dareemaysaa ee sidaad aragtaa haddii gurigaan imaato macnaha wax yar ayay nala joogaysaa si ay cidlada iyo welwalka uga baxo markaan ku badhiyaa ninkaygiyo bal arrinkaas aqbal xilligaas ayuuna ninkeedii Jack bilaabay inuu bal arrinkii ka fikiro madaxana xogto kadibna waxay ku tiri gacal iyo degayso waa hooyadeenna ha ka cabsan wax dhibaata kaa soo gaarayso wax yar ayay nala joogaysaa anigu waxaan u diidanahay cidlada ay halkaasi kula jirto markaan ku baryaa u ogolaaw xilligaas ayuuna ninkii bilaabay inuu ka labalabeeyo ilaa ugu dambayntii madaxa u lahay wuxuuna ku yidhi okay dhimale gaclisadii haddii aad farxad ku dareemaysid waa keeni kartaa gurigana waa gurigaagii iyadana isla habeennimadii moobilka ayay gabadhii yartaa qabsatay kadibna hooyadii la xiriirtay waxayna ku tiri hooye macaan berri ayaan ku imaanayaa oo xaafadda kugu imaanayaa waana ku soo kaxaynaya ninkaygana waa uu ku aqbalay maamadiina xilligaas aad bay ugu farxday waxayna ku tiri gabadheydii allah ku barakeey gabar fiican ayaad tahay ee guulayso habeenkaasna si wacan ayay isku macsalaamayeen gabadhii hooyadeed maalinka xiga markii la gaaraba isla markiiba Jack iyo waliba gaclisadiisii Sara baabuurkooda ayay soo xiriirteen waxayna u soo dhaqaaqeen halkaasi tuuladii yarta ay ku nooleed maamadii Rihanna iyadana laabtida waa ay si diyaarsto boorsooyinkeeda waa ay soo xiratay iyagase wata dherer kuma aysan qaadan oo maray barqadii tahay baabuurka ay soo dhistaajiyeen guriga ay ku nooleed Mama Rihanna xilligaasi bannaanka taagan ayaa gabadheeda korka aragtay markuu baabuur ku soo degay iyadoo aad u faraxsan ayayna dhankaasi gabadheeda u soo horoday iyadoo faraxsan ayayna gabadheeda hab siisay xilligaas ayayna gabadhii waxay tiri hooye macaan aad baan kuuga xiisay maamadii ayaana sidaasoo kale tiri gabadheydii aniga aad baan kuuga xiisay iyagoo xilligaasi laga dareemaya ilimada farxadda
sidaasoo kale baabuurka xilligaas waxaa kasoo degay ninkii jaag ahay maamadii hore ayaana ku tiri iyadoo dhalacadeynaysa wiilkaygiio aad baad u mahadsan tahay sidaad igu ogolaatay inaan gurigaaga nimaado waana kaaga mahad celinayaa iyadoo xilligaas u mahadnaqaysay jaag ayaana xilligaas waxa uu ku yidhi hooye macaan gurigu waa gurigaagii waana kugu soo dhoweynaya adigana hooyada ayaa tahay xilligaas ayuuna bilaabay boorsadeedii yartii iyo weliba alaabteedii inuu baabuurka dhanka dambe u saaro iyadan xilligaas wuxuu ku yidhi maamo baabuurka soo gal isagoo albaabka ka furay gudahan u galay kadibna safarkooda ayay sida caadiga iska soo bilowdeen ilaa ugu dambayntii ay soo gaadheen magaalada Lagos gaar ahaan gurigii ay gabadhii yarta Saara ay ku nooleed goortii Saara gurigiisa u soo gaartaba hooyadeed ayay waxay tustay qolkii ku noolaaleed waxayna ku tiri hooye macaan qolkan waa qolkaadii oo ku soo dhow adiga ayaana kuu diyaariyey maamadii xilligaas la cadeynaysa ayaana tiri gabadheedii aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa laakiinse maxaa is leedahay daawada halkan waa ay ka dhici doonaan gabadhaanse ma ku saxneed inay gurigan hooyadeed keento maxayna gadaal iska bedeli doonaa wal adiga fikirkaada koontiga nuula wadaago balsiisadaala qisadan waxaa dhici doona intaad muuqaalka joojisid si kastaba haatee aan qisadeenna u soo laabano maamadii si wacan ayaa gurigii loogu soo dhoweeyey weliba maalinkaas si wacan ayaa loo marti sooray iyadoo aad ugu farxday aadna ugu mahad celisay wiilkeeda iyo weliba gabadheeda sida wacan ay u soo dhoweeyeen iyadoo xilligaasi maamadii dareentay gurigii cillada ahay iyo weliba meeshii keligeed ay ku ahayd inay hadda ugu dambayntii ay ka soo wareegto meel fiican ay timid weliba guriga gabadheeda sidaasoo kale gabadhii yartayd Saara aad bay ugu faraxsaneed inay hooyad markaani waqti la qaadanayso subaxyadii ugu horeysana maama Rihanna markii subax hore ay soo kacdo gabadheeda ayaa kafeegeeda yarka u diyaari jirtay iyadoo dhihi jirta hooye macaan waqtigaada qaado waxayna bilaabeen labadooda inay halkaasi ku sheekaystaan maadaama gabadhan yartaa ee Saara inta badan aysan shaqayn jirin oo guriga ayay joogi jirtay marka hadda fursad waxaaba isku helaba maamadii iyo weliba gabadheedii iyagoo bilaabay inay halkaasi waqti ay ku qaataan iyagoo ka sheekaysanaya waayahoodii hore iyo weliba waqti hore wixii dhacay si kastaba haatee waqtigu iyo waayuhu wuu isguray oo asbuucba wuxuu isku dhibaya bilaha bilna bisha ku xigta laakiin gabadhii yartahayd waxa ay ku baraarugtay arrin weliba arrinkaasi way kala baraarugtay dhankaasi dhinkeeda habeenada ka mid a waxa ay ka timid meel iyadoo gabadh asxaabteeda soo booqatay kadibna waxay u timid ninkeeda oo qolka fadhiya xilligaasna mobilkiisa ayuu isticmaalay waxayna ku tiri gacaliye habeen wanaagsan xaaladaada ka waran waa sidee xilligaas ayuuna bilaabay ninkii uu yidhaahdo waan daalanahay oo hadda xaaladdeed ma wacna iyadana xilligaas waxay ku tiri maxaa qaldan ma wax dhib ayaa jira laakiin xilligaas ma uusan jawaabine meesha ayuu ka dhaqaaqay kadibna wuxuu sii aaday dhankaas iyo qolkiisa gabadhiisa xilligaas way yaabtay ninka iyo wax ka qaldan kadibna jikada ayay aaday oo xilligaasi hooyad ay ku jirtay kadibna waxay ku tiri hooye macaan ninka maxaa ka qaldan maamadii ayaana xilligaas ku tiri gabadheedii dhegayso waxaani waa calaamadaha lagu yaqaano ragga mararka qaar way iska daalan yihiin marka waa inaad iska dulqaadataa tan kale aan kugu daray gabadheedii noloshu mar waa macaan tahay marna waa qaraar tahay marka labadooda waxaa looga baahan yahay inaad u dulqaadatay gabadhii ayaana xilligaas ku tiri okay hooye macaan aad baad u mahadsan tahay iyadoo xilligaas ka dhaqday iska seexatay laakiin arrinku intaasi kuma joogsane ee habeen kale waxaa dhacday gabadhii si caadada iyadoo guriga joogta ayay waxay dareentay ninkeeda inuu soo daahay waayna la yaabtay xilligaas waxayna bilowday inay wacdo laakiin waa u sheegay inuu soo daahay gabadhiise arrinkaasi uma aysa qabane way iska seexatay laakiin mar dambe hurda ay ka soo kacday iyo waxay maqashay dhawaaq iyo weliba wada sheekay soo baxaya goortayse qolkeedii ay ka soo baxday iyo waxay soo aaday dhankaasi qolkii fadhiga kadibna waxay xilligaasi la yaabtay waxay aragtay ninkeeda iyo weliba hooyad oo xilligaasi sheekaysanaya qoslaya wayna aamini weysay waxayna tiri oo kaalay maxaa meeshani ka socda weliba ninkii wuxuu ii sheegay inuu soo daahaya ee xilligaani muxuu halkaani ka qabanaya weliba hooyaday la samaynaya laakiin arrinkaasi gabadhii waxuunka ma aysa soo qaadin oo waa ay iska seexatayoo waxay ka soo qaaday arrin iska caadiya laakiinse maalin kale waxaa dhacday arrin kaloo cajiiba gabadhii waxay aaday suuqa waxayna xilligaasi bilowday inay iska soo adeegato goortayse adeegii soo dhammaysato oo doonaysa lacagtii inay bixiso ayay waxay ogaataba inay kaarkii lacagtii ku bixilaad ay ka soo tagtay kadibna moota ayay soo qabsatay oo waxay soo hadday dhankaasi gurigiisa ay kaarka u soo qaadato laakiinse goortii gurigaysa u soo gaartaba weliba qolkeeda ay toos u aaday ayay aragtay qolka hooyad oo xilligaasi furan kadibna qolka hooyad ay soo gashay waxay aragtay qaanad yar oo iska furneed qaanadii ayayna sii agtay xilligaas ayayna waxay aragtay katiinad yar oo aad u qurux badan weliba markay katiinadaasi fiirisay dahab ayeed waxayna xaqiiqsatay in dahabkan uu aad u qaali yahay waxayna xilligayti oo kaalay hooyaday xagee ayay ka keentay katiinadan si aan u qaaliya isla markiina waa ay soo qaday katiinadaasi oo toos waxay u aaday dhankaasi jikada oo hooyad ay ku jirtay goortaysa jikadiisa u soo gashay ayayna xilligaas waxay ku tiri hooye macaan ku weydiiye katiinadan halkay ka soo heshay maamadii oo xilligaasi dhoola cadaynaysa ayayna gabadheeda ku tiri
gabadhaydii gabadhaan saaxiibanahay oo Ameerika ku nool ayaa ii soo dhiibtay oo waa hadiyad. Xilligaas ayayna gabadhii yaabtay waxayna ku tiri hooyo macaan oo taas aniga aanan aqoonin si camal. Laakiinse xilligaas hooyadii waxay tiri gabadhaydii ma taqaanid arrinkani sidaas uga gudub. Si kastaba ha ahaatee gabadhii xilligaas iyadoo shakisan ayay meeshii ka baxday katiinada ayayna dib isaga celisay iyadoo qolkeeda isaga laabatay kadibna arrimaheedii soo dhammaysatay. Laakiinse maalmihii xigay arrinku faraha ayuu ka sii baxay oo gabadhii markay isku dayda ninkeeda inay wax kala hadasho ninku waxa uu bilaabayaa inuu arrinkeega gabadhaba oo iska dhiga tiro oo macnaha waxba ka soo qaadin taasoo ka dhigan inuusan ayada danaynayn weliba waxyaabaha ay sheegayso waxna uusan ka soo qaadin. Gabadhiise arrinkaas uma aysan begin laakiin ninku arrinka faraha ayuu ka baxay oo waxa uu bilaaba gabadhii dhanba inuu iska dhiga tiro. Kadibna habeenada ka mid waxaa dhacday sida caadadeeda ninka isagoo fadhiga fadhiyay maagta la hadal laakiin dhinaceeda ayuu xilligaasi ka dhaqaaqay taasoo ka dhigneed inuusan iyada rabin. Laakiinse xilligaas gabadhii waxay bilowday inay oyso iyadoo xilligaas qolka fadhiga dhinaca ka fadhiisa ayaa gabadheeda u soo dhowaatay madaxa u salaacday waxayna ku tiri gabadhaydii isdeji waxaana waa wax yar noloshuna way iska yar tahay adigana waxaa lagaga baahan yahay dulqaad. Gabadhiisa xilligaasi ma aysan ogeyn sababta uu ninkana sidaan ugula dhaqmayo. Xilligaas ayay waxay istiri warkaale ma adiga ayay wax kaa qaldan yihiin ma ninka waad isku qurxisid waxaa laga yaabaa inuu ninka uusan ka helin sidaad u dhaqmaysid. Kadibna gabadhii go'aan waxay ku gaarta balse inay wax ka beddesho dhar qurux badan ayay bilowday inay xirato sidaasoo kale waxay bilowday baraafuuno waaliya oo ninkan ay ku soo jiido karto. Nasiib darase wax walba ay isku daydo ay tiraahdo ninkan ku soo jiido dhammaan waa ay ku guuldaraysatay taasoo ay ka dhigan tahay ninkan inaysan gacan ku dhigi karin mana aysan ogin xilligaasi ninka waxa ka qaldan. Inkastoo Saaro wax walba isku dayday habeenada ka mid a waxa dhacay sida caadada markay qolkii jiifka aadeen ay bilowday ninkii inay bal xilligaas isku dayday inay la hadasho ayna ku soo jeestay xilligaas ayayna ku tiri gacali ay dhegayso maxaa qaldan oo aniga aan kaa sameeyey ii sheeg maxaad maalmahan iga fogaanaysaa ma jeclid miya. Laakiin xilligaas ninkii wax hadala ma uusan dhihin waa ina yaabtay xilligaas waxayna ku tiri runta ii sheeg aniga ima jeclid miya jaag maxaad ila la hadilaaday. Laakiin jaag wuu iska dhiga tiray gabadhiina iyadoo murugaysan ayay habeenkaas ka sahatay. Subaxiga ayaa la gaaray sida caadadeeda maamadiina quraacdii ayay soo diyaarisay halkaas ayuuna ninkii cuntada ku cunay. Xilligaas ayayna maamadii ku tiri waran cuntada ma ka heshay. Odaygii ayaana xilligaas waxa uu yidhi aad bay u macaan tahay. Gabadhiisa xilligaas indha ayaa ka soo haray iyo weliba ammaanta goonida oo gabadhan sida ugu ammaanayo hooyadeeda. Xilligaas ayayna maskaxdeeda bilowday in gabadhii ay ka shaqayso is tiraahdo war ma laga yaaba hooyadii ninkan inay wax ka dhexeeyaan. Haddana waxay tiri waaye macquul maahan. Laakiin xilli ay galaba tahay oo maalinkaasi galabteeda ayay markale qolkooda soo gashay. Halkaas iyana waxay ku aragtay arrin kale cajiiba gaar ahaan qaanadii dahabkii awal ku jira markii laga soo tago waxay aragtay saacaddanna xasuus dheer ayay gabadhii gashay. Saacaddani waa saacad ay doonaysay in ninkeeda mar uu noogu soo iibiyo laakiin wuxuu u sheegay inuusan lacag haynin weliba saacadda markay sii egto waa saacaddii laftirkeedii. Waxayna isku tiri xilligaas ayada isla hadlaysa oo hooyadii saacaddan qaaliga sida ayay ugu soo gadatay. fikir dheer basi ma aysan gelinaysan qaanadii ayay iska hirtay kadibna qolkeeda ayay isaga laabatay. Sidaas ayaana maalinkaasi looga gudbay iyadoo gabadhii sidaas uga fakaraysa. Waxayna gabadhii xilligaasi ku dhowaatay intaa inay waalato. Subaxiga markii la gaarana gabadhii waxay qoratay waxyaabaha ay xilligaas u baahneed oo waxay doonaysay inay soo qaado. Markii ay wixii dhammaysatana way soo baxday si ay suuq waxyaabihii ay soo qorataba ay uga soo qaadato. Laakiin maray magaalada bartankeeda marays ayayba soo xasuustay mar kale inay iska soo hilmaantay boorsadii ay lacagta ugu jirtay. Kadibna waxay tiri warkaala maalmahan maxaa iga qaldan si degdeg ayeen u soo kala wareegtay waxayna soo aaday dhankaasi gurigii si ay boorsada lacagta uga soo qaadato wayna soo orday. Ugu dambeyntiina waxay soo gaartay gurigii toos ayayna waxay u aaday dhankaasi qolkeeda diifka xilligaasna kor ayuu ku yeelay darajarta ayay kor u fuushay waa ay sii dhaqaaqday. Qolkeeda markii u sii dhawaatay ayayna xilligaas waxay maqashay shanqar waa ayna yaabtay waxay tiri oo kaala maxaa meeshaan ka socdaa. Qolkiisa goortay si aad soo furtay waxay halkaas ku aragtay waxay aad uga naxday waxaasna wax kale ma ahayn waxay aragtay ninkeeda iyo weliba hooyadeed oo xilligaasi dhanka iyo sariirta la jiifa. Gabadhiina waa ay naxday waxayna bilowday xilligaas inay qayliso waxayna tiri hooyo weliba ninkeedii ay ku tiri maxaa qaldan maxaana halkani ka socda. Jaagoo xilligaas naxsan ayaana ku yiri gacalay si amoodda xumo jiraan. Laakiin gabadhii xilligaas ma aysan dhegaysan iyadoo qaylinaysa ayayna meeshii ka soo orday waxayna u soo orday dhankaasi jaranjarta. Laakiin goortay jaranjartii soo fuushay iyada ordaysa ayay jaranjartii labaad markii lugteeda sii qaaday ay lugtii u baxday. Nasiib darasa gabadhii
jaranjarta ayay ka soo darootay ilaa ugu dambeyntii madaxa ay ku qaadatay mid ka mid a jaranjarta halkii ayayna gabadhii ku dhacday. Jack isla markiina gabadhii ku soo orday wuxuuna xilligaasi bilaabay inuu yidhaahdo gacalisa maxaa kugu dhacay sidayna wax ku gaareen. Sidaasoo kale hooyadii ayaa isla markiiba soo orday iyadoo aad u murugaysan waxayna tiri gabadhaydii sidee ayay wax ku gaaraan iyadoo isla markiiba qabatay waxayna ku tiri gabadhaydii kac oo ku baryaa gabadhaydii kac ma socday maxaana kugu dhacay. Laakiin xilligaasi gabadhii wax dhaqaaqa ma aysan samaynin. Xilligaasi waa ay u naxay ninkii Jack laftarkiisa kadibna isla markii daf ayuu gabadhii soo yiri baabuurkiisa ayuuna ku tuuray wuxuuna u soo dhaqaaqay dhankaas isbitaalka. Maamadiisa xilligaas baabuurka waa ay saarneed gabadheeda ayayna xilligaas ka haysay waan ku baryaa gabadheedii ha dhiman ma doonaya inaad iga fogaato waan ku jeclahay. Laakiinse ninkii Jack baabuurkii waa uu dhaqaajiyey gabadhiina xilligaas wax hadala kama aysan soo bixin. Jack laftarkiisa aad buu u naxsanay intuu baabuurka waddada ku sii wadana waa uu ducaysanayay isagoo dhahaya yaa aysan gabadhaani dhiman. Si kastaba ahaatee gabadhii waa laga saaray ugu dambeynna isbitaalka ayaa la keenay waxaana isla markiiba la wareegay dhakhaatiirta birmadka degdega waxayna una carareen dhankaasi qolka emerjensiga. Saacado ayaana ka soo wareegay ugu dambeyntiina dhakhtarka ayaa bannaanka ku soo baxay isagoo weliba wejigiisa xilligaas laga dheehanayay war murugo leh. Kadibna xilligaas wuxuu yimid Jack iyo weliba maamadii wuxuuna ku yidhi aad baan uga xumahay gabadhii waa ay geeriyootay. Maamadiisa goorta intaasi maqasho waa ay naxda weyn aamini weysay. Kadibna dhakhtarka ayuu ku tiri dhaktar waan ku baryaa in mar kale baaritaanka lagu sameey waxaa laga yaabaa inay nooshahay. Laakiin dhakhtarka wuxuu ku yidhi gabadhaani waa ay dhimatay. Si kastaba haatee 2 maalin kadibna gabadhii waa la iska soo duugay. Xilligaasi la soo duugayna aaskay dad badan ayaa ka soo qayb galay. Maamadii oo meesha joogta ayaana xilligaas gabadheed u soo dhowaatay inaa sanduuq ay gabadha ku jirtay ayna ku tiri gabadheedii aad baan ku jeclahay mana doonayaa si aan ay iga fogaatin. Iyadoo marka la xasuus dib u gashay iyo weliba dhimashada gabadheeda inay sabab u hel. Sidaasoo kale dadkii meesha ka soo qayb galay iyaga laftarkooda xilligaasi waxay isweydiinayeen sababta ay gabadhan u dhimatay. Si kastaba ahaatee ma aysan jirin xilligaasi xaqiiqada saxda ah ee gabadhan ay ku dhimatay. Laakiin waxaa ogaayay 2 qof kuwaas qof kale maahane waa gabadha iyo weliba macnaha gabadha hooyadeed iyo weliba ninka Jack. Si kastaba ahaatee aastaankii waa uu soo dhammaaday kadibna guriga ayay isaga soo laabteen. Horta asbuucii ugu horreeyaba ninkii Jack iyo weliba maamadii islama aysan hadlin oo geesa ayay kala fiiriyeen. Laakiin asbuuc markii arrinkay ka soo wareegataba maamadii sida caadada waxay bilowday jikadii inay gasho kadibna ninkii quraacday sidaas ugu soo diyaariso. Jackna isma dhibinaya sida caadadiisa cuntiisa ayuu iska cunay kadibna shaqadiisa habeenkii ayuuna sida caadadiisa waxay bilaabeen inay si caadi u sheekaystaan maadaama muddo asbuuc ay kala aamusnaayeen. Arrinkuna si wacan ayuu xilligaasi ku soo laabtay. Inkastoo haddana maamadii xilligaasi aysan ka murugaysanin dhibaatada weyn waxaa ninka Jack laftarkiisa oo xilligaasi dareemayay dhimashada xaaskiisa inuu sabab u yahay. Laakiin maamadii ayaa bilowday xilligaas inay dejiso waxayna ku tiri dhegayso waxaani waa adduun waqtiguna wuu iska socdaa marka waan ku baryaa isku murugin gabadheedii waqtigeeda ayaa dhammaaday. iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyay bilowday inay ninkii u soo dhawaato weliba soo dhawaanshaha inaba caadi ahayn. ninkiina murugada iyo xilligaasi maskaxdiisa ka saartay iyadoo gelisay jawi kale. si kastaba ahaatee maamadii xilligaas farxad ayay dareemaysay maadaama hadda ugu dambeyntii ninkani ay gacanta ku dhigtay oo iyada waxaana ka celin abi jirin qofkii labadooda u dhaheeyana maanta meesha ay ka saartay. maamadiina xilligaas waxay xaqiiqsataba noloshii mugdigaad iyo weliba kelinimada ee halkaas ugu dambayso. si kastaba ahaatee ninka iyo wax walba u samaysay weliba si ay ku soo jiida karto wax walba ayayna ka dhaadhicisay. ninkiina xilligaasi kama uusan diidin gabadhii sidaas ayuuna waqti iskala qaadanayeen maamadani. waqtigu waa uu socday 2 sano ayaana ka soo wareegatay. arrinkuna sidaas ayuu ku socday oo maamadii iyo weliba ninkani waqti ayay iska qaadanayeen. laakiin arrinkaasi waxaa jiray arrin kale oo aana bulshada ku waraarubeen. bulshadana xilligaas waxay dhahayeen maadaama gabadhii hore ay dhimatay waxay maamadan weli guriga u nooshahay ninkana uu kuna nool yahay. kadibna waxay bilaabeen bal arrinkaas inay xaliyaan. si ay ku xaliyaanna waa inay labada isguursadaan. laakiin su-aashu waxay tahay si isu guursanayaan. inkastoo maamadan ay maamo waaweyn ahayd ugu dambeyn Jack ayaa waxa uu soo jeediyey inay aroos yar oo qarsoodi ay dhigtaan wadaadna u yeertaan. ugu dambeyntiina luwaas ayaa isku raacay wadaad ayayna keensadeen. kadibna labadooda ayuu sidaas ugu meheriyey. wixii intaasi ka dambeeyana maamadii guriga xaas ayay ka noqotay. laakiin ninkii Jack wuxuu yidhi maya waran haddii mid aan samayno gurigana waa ka goynaa maadaama dadku ay war badan naga sheekeegayaan oo annakeena u dul sheekaysanayaan. waxaan u baahannahay guri kale inaan degno. laakiin maamadii ayaa xilligaasi diiday waxayna ku tiri
ma doonayo guriga gabadhayda inaan ka guuro, halkan ayaana joogaya. Sababta waxaan doonayaa gabadhayda inaan ku soo xasuusto. Xasuus walba ayaan halkani ku ogaanayaa. Markaan ku baryaa gacali halkaan naga rarin. Isagana ugu dambeyntii waa uu ka aqbalay. Si kastaba ahaatee waqtigu waa u gurmay oo bilba bisha ka xigta ayay isku dhiibtay. Laakiinse maalmaha ka mid ah waxaa dhacay arrin oo ay imaamadii ku baraarugtay. Arrinkaasna wax kale ma ahane ninkii Jaga wuxuu bilaabay inuu guriga uu isaga soo daaho. Xilligaas ayayna isweydiisay kaala maxaa ka qaldan. Marar badan ayayna isku dayday inay ninkii la hadasho, laakiin mar walba oo ay la hadasho ninkani cudur daar uu u keeni jiray iyo weliba inuu iska daba wareejiyo. Inkastoo maamadii wax walba isku dayday oo ninkani ay ku soo ceshan karto, haddana waa ay ku guuldareysatay. Mana aysan noqonin xilligaasi ninkani waxyaabaha ka qaldan iyo sida uu la dhaqmo. Xitaa waqtiga uu la qaadan jiray waa uu ka gaabiyey. Keliya arrinka intaasi kuma uusan ekayn ninkii Jage xitaa waxa uu bilaabay gabadhii macnaha maamadii cuntada ay soo kariso inuusan cunin. Halkaasna maamadii waxa iga ka sii qaaday stress iyo murugo, iyadoo xilligaas maskaxdeeda ay ka guuxayaan sababta uu ninkani uga fogaanayo qaladka ay samaysay. Dhanka kale Jag isaga laftarkiisa xilligaas qoomo ayuu dareemayay, weliba qoomadaas wax kale ma ahane wuxuu dareemayay gabadhii miskiinta ahayd qaabta weyn ay marsiiyeen weliba sababtay u dhimatay. Habeenada ka mid ah ayuuna guriga ku soo laabtay weliba xilli dambe. Maamadii ayaa xilligaas waxay ku tiri waxaan doonaynaa inaan wada hadalno. Kadibna xilligaasi fadhiga ayay fadhiisteen waxayna ku tiri waxaan ku weydiinayay sheeg aniga ma jeclid miya. Jag ayaana xilligaas wuxuu bilaabay inuu qoslo, wuxuuna ku yidhi jacayl nooca ayaa ka hadlaysaa. Maamadii ayaana xilligaas bilowday inay ku soo jeestay waxayna ku tiri kaftankayga daa aniga ma jeclid miya. Markaas ayuuna wuxuu ku yidhi maya aniga kuma jecli. Maamadii ayaana xilligaasi tiri maxaa ka qaldan, wadabta wax walba darta ayaan u sameeyay si aan adiga ku soo jiito. Laakiin isaga xilligaas waxa uu ku yidhi maya dhegeysa, xaqiiqdu waxay tahay inaan ku jeclayn waan ku baryaa hal codsi ayaan wataa. Gurigan hadday iga baxdid waan ku mahadceli lahay sababta aniga waan ku dhibsaday. Mar walba wejigaada arkana dhibaato ayaan dareemayaa, marka waan ku baryaa gurigan miiga bixi kartaa. Maamadii ayaan xilligaas aamini weysay waxa ay maqlaysay weliba ninkani sida uu la hadlayo, waxayna tiri hadalkaaga afkaada ka soo baxaya ma maqlaa dhegahaagu. Isigana waxa uu yidhi haa xaqiiqdu waa taas waan ku baryaa guriga ka bax. Maamadii ayaana xilligaasi bilowday inay aad uga murugooto ninkan hadalkiisa waxa ay ka maqlayso, wuxuuna ku yidhi adiga kuma rabo waan ku baryaa guriga ka bax. Maamadii xilligaas murugaysan ayaana qolkeeda iska aaday. Subaxiga markii la gaarana ninkii xilliga uu shaqada sii aaday ayay bilowday ninkii inay ku dhigto iyadoo dhahaysa waan ku baryaa cafi haddii aan qalad kaa galay, laakiin waxaan kula rabaa inaad adiga waqti kula qaato. Isagana xilligaas wuxuu ku yidhi ma doonayo inaan gurigan kugu arko waa inaad ka baxdaa markaan habeenka gurigan ku soo laabto. Ninkiina xilligaas wuu iska baxay shaqadiisa ayuuna iska aaday. Ilaa habeennimadii markii uu guriga ku soo laabtana wuxuu arkay maamadii xilligaas guriga joogta. Isagana isma uusan dhibin xilligaas uu guriga imaanayay. Gabarka ayuu hore isaga soo kaxistay, weliba gabar yar oo aad u qurux badan soo jiidasho leh. Xilligaasna wuxuu sidaa u sameynayay inuu maamadan guriga uga saaro. Maamadii xilligaas aragtana aad bay u murugootay, waa ayna ka naxday ninkan iyo weliba waxyaabaha uu sameynayo iyo gabadhan uu guriga keenay, iyadoo xilligaas bilowday inay aad uga murugooto gabadheeda iyo weliba khaladka weyn ay ka gashay. Iyadoo laftarkeeda marka la dib u xasuustay sida ay gabadheeda ay ku dhimatay ayay xilligaasi bilowday go'aan inay meesha ku qaadato. Waxayna tiri maya Jaga ma ogolaanayo inaad arrinkaani aad samayso, weliba gabdhaha guriga keentid adigoo xilligaa doonaya inaad aniga aad iiga masiirtiisid. Kadibna waxay bilowday inay maskaxdeeda ay ka shaqaysiiso si ay ninkani uga aarsa lahayd. Wax kalena ma aysan doonin ma rabto ninka inay waxyeello u geysatay maadaama ay jeceshahay waxay doonaysay gabar walba meeshaani keeno in ay ka takhalusto. Kadibna maalinimadiiba way aaday dhankaasi jikada ayay u dhaqaaqday, waxayna xilligaasi bilowday sun dooli ay awal hore u soo gadatay inay raadiso. ugu dambeynna suntii ayay xilligaasi gacanta ay ku soo dhigtay, waxayna tiri gabar walba aad keentay ballan waxaa kaga qaadayaa inay halkan ay ku dhimo doonto. Kadibna xilligaas waxay bilowday cunto inay ninkii ay u diyaariso maadaama yogeed inuu caawa gabar kale uu la imaanayo. Cuntadii ayayna halkaasi ku diyaarisay, cunto walbana waxay ku dartay sun. Marka laga reebo cuntada ay ninka uu cunayo maahane inta kale sun ayay ku dartay oo waxay doonaysay gabadha inay sidaas ugu takhalusto. Cuntadiisa ka hortay si fiican u diyaarisay ayay miis ku soo sharaxday. Ninkiina habeenkii guriga ayuu ku soo laabtay. Kadibna xilligaas wuxuu arkay cunto aad loo diyaariyey oo uuna yaabay. Gabar ayaana xilligaasi la socotay. Kadibna waxay dhahday soo dhawaada cuntada cuna. Gabadhii ayayna xitaa u tilmaantay meeshay fadhiisanayso. Gabadhiina ma aysan shakin xilligaas waxay bilowday cuntadii inay si tartiib ah u cunto.
xilligaasna maamadii waa ay daawanaysay aad bayna u faraxsaneed wax walbo ay gabadhu ay qaadanaysana waa ay daawanaysay gabadhiisa goortay xilligaas cuntadii afgashataba waxa ayay dareentay laakiin cuntada ayay iska wadatay ninkiisa jaaga ah balaayo waxa uu xilligaas ku dhigay in cuntadii gabadhu ay cunaysay inuu xilligaasi bilaabay inuu dhinaceedaba oo wax yar uu ka cuno inkastoo maamadii ay xilligaasi naxday ninkii cuntadii ayuu cunay gabadhiina sidaas oo kale laakiinse daqiiqado kamay soo wareegan waxay bilaabeen xilligaasi inay xanuun dareemaan meeshiina qayle ay ka bilaabaan qayladaasna waxaa ku baraarugay xitaa deriska ay iyagoo isla markiiba booliskii la xiriiray maamadii xilligaas waa ay naxday kadibna waxay u soo raday ninkii waxayna ku tiri cali waan ku baryaa dhiman aniga aad baan ku jeclahay ma doonayo inaad iga fogaatid laakiin ninkiisa daqiiqado kamay soo wareeganba ninkii bartii ayuu ku dhacay sidaasoo kale gabadhiina bartii ayay ku dhacday minaha halkaas ayay ku geeriyoodeen maamadiina xilligaas waxay bilowday inay meeshay ka cabaado gurigeena ay ka dhex qayliso iyadoo dhahaysa wax walba maanta gacanteeda ayaan ku lumiyey wax walbana waxa uu wacnay qaladkii aan gabadhayda aan u geystay meeshii ayayna bilowday inay si saayida ay ugu oyso weliba ooyin dadka oo idilay ku baraarugeen sidaasoo kale booliska ayaa si degdeg guriga u soo gaaray maadaama deriskii awal ay hore u sii wargeliyeen booliska goortaysa guriga gudaha sidaas soo galeen waxay bilaabeen baaritaan inay ku sameeyaan iyagoo ugu dambayntii halkaasi ku arkay labada meyd ee meesha taalla meeshii ayayna ka soo qaadeen ayagoo ambalaasta ku shubay sidaasoo kale ayaana kaaga tegin maamadii ayay isla markiiba soo qabteen keeba ayayna dakab ku siiyeen xilligaas maamada wax dagaalama aysan samaynin abuurka ayaana gudaha loo geliyey iyadoo xilligaasi loo soo dhaqaajiyey dhankaasi saldhigii kadibna baaritaan ayaa lagu sameeyey waxaan la bilaabay in la waraysto askariga waraysanaya wuxuu ku yidhi waa inaad sheegtaa wax walba markii ugu horraysay maamadii waxay bilowday inay ka marmarsiiyoota ka warwareegto laakiin askariga ayaa xilligaas uga hanjabay inuu ciqaabi doono haddaysan runta sheegin maamadii isa markaas ay bilowday inay afka furato wax walba ayayna ka sheekaysay laga soo bilaabo gabadheedii ninka ay ka dhacday dhimashadeeda ayaana sidaasoo kale aan kaaga ribay ninkani markii ayada u khiyaano gabdho kale uu ku keenay gabdhihii siday u dishay ninkan iyo sababta u dhintay wixii idil ayay ku sheegtay hortays intaasi maqleen aad bay u naxeen oo u aamini waayeen iyagoo xilligaas ku tilmaama haweeney inay tahay haweeney saaxiirada aan weliba naxariis aan lahayn iyo weliba wax xun ay ku dhaqday si degdeg ayaana maxkamadeynteedii loo soo dejiyey isbuucba kama soo wareegan oo maxkamadda ayaa maamadii lasoo saaray xilligaasna maxkamaddii waxaa yimid dad fara badan ayaana kaaga rebanaya xitaa meeshii tuulada ay ku nooleed marka warka gaaraba iyagana maxkamadda ayay iska soo xaadiriyeen xilligaasna waxay la yaabnaayeen maamadani weyni ka badan waxa ay samaysay weliba gabadheeda khiyaanada ay u geysatay iyo weliba inay sidaasoo kale sababo ay u ahayd in dhimashada gabadheeda ninkii qabay sidaasoo kale gabadhii guriga timidba kadibna qaadiga ayaa xilligaasi bilaabay in su'aalo oo weydiiyey maamadii iyadana wax walba saas ayay uga jawaabtay yaana sidaasoo kale kaaga reebin xitaa qareenna ayaa waxay laftirkooda keeneen caddeyn walba iyo weliba si ay dadkii u dishay hootiisa wax walba halkaasi lasoo dhigay iyadana su'aalo laga weydiisay saxda ay nooga jawaabtay ayaa isla markiiba qaadigii wuxuu ku dhawaaqay in ayada xabsi ay gelayso weliba xukunkeeda waxaa laga dhigay xabsi daa'im taasoo ka dhigan naftaada ha ku furato hortausa qaadigii sidaas ugu dhawaaqaba dadkii aad bay ugu farxeen xilligaasi holka maxkamadda ku sugnaay iyagoo xilligaasi xaqiiqsaday in hadda wixii ka dambeeya maamadani ay mari doonta xaqiiqadeeda saxda kadibna waa la kahayey qol yar ayaana lagu xidhay weliba qaal aad u yar waxayna xilligaasi dareentay maamadii murugo saayida maalmihii ugu horreeyana cuntadii xabsiga ayaa lagu soo dhoweeyey laakiin sayida xilligaasi kuma aysan farxin sidaasoo kale dadkii xabsiga sheekadooda ayay ogaadeen kadibna waxay bilaabeen inay iyada iska takooraan xilligaasna murugo ayay dareentay maamadii keliya arrinku intaasi kuma uusan ekeen ee xitaa qolkii yarka ee xabsiga ahay xilligii ay hameenkii iska seexato waxa ay ku riyo jirtay gabadheeda iyadoo xilligaasi dareemaysa qoomamo saxaabiyi horta sheekadeennu halkaas ayay ku soo gabagabowday maama rihanana sheekadeedii halkaas ayay ku dhammaatay bal daawad horta ayna weydiiye si ayay aragteen qisadan bal fikirkeena kuwantigu nagala wadaaga aad baanu jeclahay fikirkeena qurxoyna arko sidaasoo kale naga hilmaamina inaad muuqaalkan laag badanaa saartaan si uu dad fara badan u gaaro iyo sidaasoo kale janaalka dadka cusubtaana naga hilmaamina subscribe saartid si ay kuu soo gaaraan qisooyinka quruxda badan iyo weliba sheekooyinkan halkan kugu soo gudbino oo walaalkiinana leh sidaas iyo amaano allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu